bilowgii bishii Juun sanadkii 2022 madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sii daayay hadal u faafay si aada kaasoo ka dhan ahaa ciidamada xoogga dalka ee lagu tababaray Eritrea walow dib u imaanshihiisii xafiiska kadib hadal hayeenkiisu ku sheegay war ibliis waa la qaaday waa la xaabiyay Eritrea lagu shubay tababaray ku maqan yihiin ciidamadii siyaasiyiinteena waa lagu handay waxa ciidanka Eritrea imaanayo waa la dardara waa la xasuuqa ilaa waa niman dhalinyaro oo intaan markay ka baxeen la qalday xaqada la iibsaday waa la iibsaday maxaa ku tilmaam kartaa adiga wax kale oo aniga ku tilmaam ma qaan dhalinyaradaas waa la iibsaday Eritrea la geeyay war iyo wacaal wax u haya male war soo duulay oo xaq ka soo duulay oo waa dhinteen oo Aksum ay ka dagaalameen oo xaqay tageen Makala lagu laayay iyo xaqay dhaceen muxuu buuraha ay ka daateen oo qaran muxuu ay ka dhaceen oo waa dhinteen oo waa saano 23 bishii May ee sanadkan madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xil wareejintiisii si daahfuran markii koobaad uga hadlay xaalka ciidamada Soomaaliyeed ee loo qaaday Eritrea ciidamo waxaa jira aad u far badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhamaystay dalka Eritrea ciidankaasi tababarkoodu waxay dhamaysteen sanadkii la soo dhaafay dhexdhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso madaxweyne ciidankaas waa ku diyaar muuqaalka qarsoodiga aan helnay oo soconaya in ka badan 4 daqiiqo loona diray ciidamada Soomaaliya ee ku sugan dalka Eritrea la duubayna intii uusan madaxweynuhu arkinba askartaas lana qariyay dhamaadkii bishii Juun wuxuu madaxweynuhu cududaar ka bixinayaa hadaladii hore uga dhacay ee ku wajahnaa ciidankan wuxuuna ku qirayaa inay ciidankan lagu tababaray Eritrea yihiin asaaska ama rajada Soomaaliya ay sugayso waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan geesiyaasha ciidamadeena wiilasheenna muddada dheer dadaalka iyo adadkaysiga ugu jiray dalkan sidii ay u daafici lahaayeen xirfadihii iyo xeeladihii ay dalka ku daafici lahaayeen oo amnigiisa ay ku sugi lahaayeen cadawgana ay ku baabi'i lahaayeenna muxuu u maqnaa muddo dheer wiilasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan ee jooga dalka Eritrea ayaan fariintan u duubayaa waxaan leeyahay wiilashaydii geesiyaashiyay waxaan idinkaga mahad celinayaa dulqaadka iyo aad muujiseen iyo adkaysiga aad muujiseen dalkan rajadiisa qaybta ugu weynaad ka mid tihiin adika rajada dalkan idinku xiran tahay waa idin imaanaya waa idin dhex fadhiisanaya waa idin dhageysanaya wiilashaydu waxaan leeyahay hambalyo mar kale geesiyaashii waa idin soo socdaa waa idin hambalyeynaa waan la soco qaybta labaad oo aan kaga hadlayno xogaha aadan ka ogan ciidanka Eritrea lagu tababaray ee Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan goorta madaxweyne xasan sheekh uu sheegay inay imaanayaan iyo cadeymaha qarsoodiga ee ay haysa Geelan Media kuwaas oo ku wajahan khudbadii madaxweynaha Soomaaliya ee uu diray ciidanka Eritrea ka hor intii uusan tegin ama laba kulmin ciidankaas